اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. walaalaha qiimaha loo siiyay bulsho ku soo dhawaada jawaabta yar ee kooban maadaama caalamka riyooyinka aynu ku dhex jirnay iyo ka hadalkooda si aynu u fahanno wax badan oo qarsoon oo naanfacaya ama yani nafteena inuu ku ogaano ay muhiim tahay ayaa dad badan waxay is weydiinayaan waa laga yaabaa waxyaalo badan inaan dareemo inta aan soo jeedo aan noolahay oo tusaya in ducadeydii la ajiibay layga aqbalay laakiin ma jirtaa dhinaca kale wax la tartami kara kuwaas oo anoo jiifo hurdo jiifka laygu soo dirayo riyooyinkaas oo laygu sheegayo inaan yani ducadii layga ajiibo layga aqbalay. dad badan waxay is weydiinayaan walaalaha ka mid ah riyada in ducadii layga ajiibay ugu garan kara yani riya ku ducaysatay ma laga waramayo riyada dhex inta ku ducaysatay laga ajiibay laga waramaya riyada dhexdeeda waxaad ku ogaanaysaa soo jeedkii ducadaad ku ducaysatay in laga ajiibay ayaad ku arkaysaa insha Allah. dhowr qodob way dabcan qodobo badan way laga yaabaa mowduucan inuu yeesho qayb labaad laakiin waxaynu hadda ku soo waramaynaa ku ugu waaweyn oo lix haddaad ku riyooto intaad jiiftid ducana aad rajaynaysay danna ay kaa maqnayd waa laga ajiibay ducadii insha Allah ama waa laga ajiibayaayo jidkay ku soo jirtaa ilaahay waa ka aqbalaya ama waa laga aqbalay ama ilaahay ka aqbali doona. waxaana kala jirta aqbalaad iyo siismo in wixii lagu siiyo aad rabtay iyo in ducada lafteeda laga aqbala laba ah laana ducada in laga aqbalo isla markii ka laazimi mayso ka dhalan mayso in lagu siiyo waxa rabtay. tusaale oo kale aan idin tusaaleeyo ilaahay baana tusaalaha sare leh waxaad ii keentay anoo xafiis fadhiya xafiiskaasi dan aad uga baahan tahay arjigaadii waraaqaad ku qoran tahay waxa rabtid tusaale kale shaqo rabtaaba aniga sidaas ay jeey waasas halkaas ku dhashay waxa soo bartay shaqadaas waa u qalmaatay oo tijaabadaas aan ku soo galay hadda koran ku soo shaqeeyay markaan arko arjiga soo dhiibatay waa macquul buu ila noqday waa aqbalay laakiin isla markii ka dhalanmayso hadda shaqada gal ka dhalanmayso oo xafiiska fariiso computerkaas aad wax ku xisaabinaysaa ama halkaas shaqada ka leedahay isla markii lama dhahayo waxa leeyahay bishaas ayaad shaqada imaanaysaa ama booskaas la banaananaya la banaynaya bisha markay inta tahay marka waxa laga yaabaa 20 bari ama bil ku dhan ama 10 bari ama isbuuc ama 2 isbuuc ama 3 isbuuc inay qaadato in aad heshid waxa rabto shaqadii iyo wixii lamidka adoo hadana lagu aqbalayo arjiga laga qaadayo in shaqada u qaranta lagu arkayo lagu imtixaamayo sida adoo macallin aha oo kale in macallinnimo lagu qaadan karo laga aqbalay laakiin booska hadda buuxa laakiin waqtiga la banaanay waqtigaas soo galaysa aqbalaada iyo siismada marka laba u dhaxaysa farqiga u dhaxaya wixii in lagu siiyo ama laga aqbalo horta taasi meel aan isla dhigno taas hadaynu ka nibaano in ducada laga ajiibay riyooyinka ku tusiyo waxa kamid ah inaad ku riyootid adoo biyaha badda cabaya daldalaya iskana dharjinaya waxa ku riyootay adoo biyaha badda cabaya ama lagu cabsiinayo ka dhargeysid ka dibiraysid biyaha badda adoo cabaya hadad ku riyootid taasi waxay ka turjumaysaa ducadii in laga ajiibay. waxaynu soo hore uga hadalay riyada badda lagu riyoodo qaababka loogu riyoodo waxa kamid aha waxyaalaha aynu sheegnay inta xasuusad dib ay u fiirin kartaa muuqaalka aynu uga warabaynay riyada iyo fasiraadeeda macaanida ay kala leeyihiin inay mar irsaaqad tusto inay faraj tusto asoomar inay faraj tusto inay irsaaqad tusto in dhibaatadii ku haysatay ilaahay ka qaadayo ayaynu ku soo qaadanay halka marka waa la mid isla wadaagan in farajka waxa kamid ducada laga ajiibo irsaaqada waxa kamid ducada laga ajiibo adoo ku riyoonayo bad inaad ka cabaysid waa qodob asaasi oo muhiim ah bishaara ducada laga ajiib. midka labaad waxa weeye inaad ku riyootid ama aad arkaysid ba albaab xirxiran la furfurayo albaab xirnaayo la furayo ama laga furayo ama hortaada lagu furfurayaba albaabihi xirxirna iyada waa qayb kamid ah laana furitaankan xiritaan kadib ay tusaysaa
ducadaadii in la furay oo la ajiibay oo bimacnaa laga aqbalay. albaabadaasi furo waa qeybta labaad. qeybta saddexaad waxa weeye inaad ku riyootid qof kuu ducaynayaba. haddaad isweydiinaysid qof kuu ducaynaya macnaha ay ka mid tahay adoo ku riyooday, hadda ogow, saacadatan ogow ama waqtigan ogow, waxaad ku riyootay qof kuu ducaynaya, qofku doona ha noqdo. hooyadaaba kuu ducayn karta, waad ku riyoon kartaa hooyadaa ku ducaynaysa, walaalkaa ku ducaynaya, walaashaa ku ducaynaysa, aabaha ku ducaynaya, qof saaxiibkaa ku ducaynaya, saaxiibada ku ducaynaysa, ninkaada ku ducaynaya, xaaskaada ku ducaynaysa. yani waxaa ku riyootay qof ku doonaba ha noqdee, qof yani ku ducaynaya ku riyoota. waa jiiftaa, hurdaa ku camiran, caalamkaasi qarsoon baad ku jirtaa, waxaad ku riyoonaysaa oo istusaysaa hebel aad taqaanay ama hebel aadan aqoonba oo kuu ducaynaya, ilaahay kuu baryaya. taasna waxay ka dhigan tahay ducadaadii in la ajiibo oo laga aqbalay ilaahay idinkiis weeye. qeybta xigta waxa weeye inaad ku riyootid quusi, waaba quusatayba, quusi baa kugu dhacayba, bas khalaas anigu waa isdhiibay, wax iisoo socda ma jiraan, ceelna iima qodno, cidna iima maqro oo kale, adoo quus taagan ayaa ku riyootay. walaalaha qaar waxay isweydiinayaa, waxaan ku riyooday anoo quustay, kadibna hurdadaan kasoo toosay anoo gagaxsan oo yaaban, indhaha taagay. maxay ka macno tahay? inaad quusatay oo aada ku riyootay, ducadii oo la ajiibay bay kamid tahay. insha allah, maasha allah, ducadii oo la ajiibay ayay tusaysaa inaad riyootay, kuna riyootay adoo quus taagan, meel aada rajo ka sugaysa aysan lahaynba. qeybta xigta waxa weeye istikfaarta, adoo istikfaarsanaya, subxaan allah, subxaan allah, astaqfirullah, astaqfirullah, istikfaarsanayaba ama tasbiixsanaya oo kale. fara ku tasbiix, tusbax ku tasbiixsatay, ilaa tusbax waa qeyb ka mid ah. tusbax lagu tasbiixdo wuxuu tusayaa dee calaamad, wuxuu yahay cibaado iyo wanaag, soo ma irsaaqad iyo waxaasuuna asaga laftirkiisu ka turjumaya. laanna waxaa hore cashar ugu soo qaadanay ka waramaya riyooyinka irsaaqada tusaya, ama irsaaqada wadada kugu soo jirta, ama irsaaqooyin kaleba. istikfaartoo kale alla qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay, faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara. rabbigeen istikfaar weydiista, alla waa dambi dhaaf badan yahay. faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara yursil isamaa calaykum midraara. istikfaarta maxaa ka dambeeya? natiijadii waa tana, yursil isamaa calaykum midraara. samada waxaa idinkaga imaanaya roob aada ku dayrsataan oo ku diirnaxdaan, maasha allah, oo idin dejiya. yursil isamaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin, caruur iyo lacag iyo maal buu idin siinaya, baniin, wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara, wabiyaal biyo qulqulaya, durdur, beero yaa la idinka dharjinaya. marka abaaraad ku sugnaydeen, ilaahay baad barideen. waxaad ku sugnayd ciriiri, ilaahay baad bariday, istikfaaraad ku riyoto. marka istikfaartuna waa faraj, ducadaadii baa la ajiibay insha allahu tacaala. qeybta kale xigta waxa weye inaad ku riyootid saytuunka iyo rumaanka, geedka loo yaqaan, oo intaba ilaahay qur-aanka ku sheegay, oo geeda barakeysan oo barakooyinkooda khayrkooda wata. zaytuun baad ku riyootay ama rumaan baad ku riyootay, waa isla mid. zaytuunku alla wuxuu ku sheegay inay tahay geed barakeysan, ifisana, la ifsan jiray waagi hore, waa la shidan jiray. marka insha allahu ducadaadii baa ilaahay kuu ifinaya, ku tusaya in lagaa ajiibay, lagaa aqbalay, lagaa yeelay, rabitaankaadina alla ku siin doono, jidka uu kugu soo jiro. zaytuunka ood ku riyootid iyo rumaanka, marsatayaa, qof u maraysayaa, lagu soo hibeeyaa, lagu siiyaa, gadatayaa, lagu gadiyaa. adigu zaytuun iyo rumaan baad ku riyoota, riyadaas waxay tusaysaa irsaaqad wanaagsan, iyo waxay tusaysaa ducada in laga ajiibay. waxaad rabteen ay jidka kugu soo jiraan insha allahu tacaala. inahaas oo lixa qof kuu ducaynaya, zaytuunku aad ku riyootid, rumaankaas, albaabo xirxiran oo la furayo 4, istikfaarta, biyaha badoo laga cabo, quusiga. intaa hadaad ku riyootid ama mid kamid ah aad aragtid, ducadaada ilaahay waa ajiibay insha allahu tacaala. qeybo kalea jira, haddii ilaahay noo fasaxo, noo ogolaado, waxaynu kusoo dari doonaa casharadana soo socda riyooyinka iyo caalamkaas insha allahu tacaala. ilahay waxaan weydiisanaynaa in riyooyinka noo xaqiijiyo,
kuwa xunxunna xumaantooda dhinac naga marsiiyo, kuwa wanaagsanna uu noo xaqiijiyo, cibaadooyinkana nagu sugo, iimaankana uu noo siyaadiyo, cilmiga iyo aqoontana uu noo siyaadiyo, fahamka iyo garaadkana uu noo kordhiyo. rabbi waxaan weydiisanaynaa mar walba inuu naga aqbalo ducooyinkeena, riyooyinkeena noo xaqiijiyo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa mar walba rajada aan ka leenahay mid noo hirgeliya, liana rajadeena waa rabbi, meel kale aan leenahay ma jirto. ilaahay baana nagu filan insha allahu tacaala. waa mahadsantihiin. halkaasaan kusoo gaarnay muuqaalka kan dhammaadkiisa. inta aynu muuqaalka soo socdo ku kulmayno waxaan idin leeyahay fii amaanillaahi. rabbigay ayaan dhammaantiinba idinku ammaansaday.